لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بإذن الله الكريم maanta إن شاء الله سؤال ayaan ka jawaabaynaa aan sharxi doono بإذن الله الكريم. su-aashana waxa waaye sidee sixirka gurigeyga loo dhigay. sidee sixirka gurigeyga loo dhigay. waxaa turuqyo badan ayaa jirta oo maaragtay qofka gurigiisa sixirka loogu dhigo. marka dad badanna maaragtay arrintan aad iyo aad ayay ula yaaban yihiin. waxay leeyihiin sheekhow aniga gurigeyga qof ma soo galo, gaar ahaan qolka jiifka qof ma soo galo. sidee ku dhacday oo sixirkaasi uu gurigeyga kusoo galay, sidee oo qofkaasi oo kusoo geliyey sixirka. marka badanaa dadka ma fahamsano in waxaan maaragtay bani aadam oo cilaaqad uusan ku lahayn inuu maaragtay jinniga lasoo diri karo oo maaragtay gurigaaga adoo joogo oo indhahaaga shanta ah oo sixirka dhigi karo. marka waxyaalahaasa ilaa hadda aan la fahamsanin. dad badan oona maaragtay oo lillahi ka ahayd oo maaragtay guriga soo galay oo gaar ahaan qolka jiifka soo galayna maaragtay dadkaas ayaa tuhmad la saaray. ayagoo waxaa dhici karta inay yihiin dad oo beri ka ah. dad oo gaarna waa jira oo waxaa sameeyo, laakiin dadka badanaa markaad aragto beri ayay ka yihiin oo waxaa sixirka guriga ma soo gelinin. laakiin arrintaas dad badan ayay mashaakil ka qabatay, dad badan ayaa coloobay, dad badan ayaa kala go-ay oo ilaa iyo hadda aaminsaneen oo anagana si kasta aan uga dhaadhacsiinay oo aan dhahnay dadkaas maaragtay mise qofkaasi aad adiga sheegaysid walaalay mise walaalo waxaa dhici kartaa inuu maaragtay uusan ahayn qofka sixirka ku keenay oo inuu shaydaan guriga kusoo geliyay sixirka sidaad maaragtay qofkaasi aad maaragtay tuhmada u saarto oo aad ka shakiso. qadar allah ma shaa facal wixii waa dhacay, laakiin ilaa iyo hadda maaragtay dhibkaas ayaana haysto. marka dadka inay fahmaan ayaa fiican in oo maaragtay adiga gurigaaga joogo ayuu jinniga imaanayaa, uu soo gelinayaa qolkaaga jiifka ayuu galayaa, meeshaasoo dhigayaa. badanaana dad badan waxaan aragnay maaragtay markaan meeshaas aan geynay meelaha uu sixirka u yaallo, ha noqdo qolka jiifka, ha noqdo qolka fadhiga, ha noqdo meesha warba ha noqdo oo sixirkaas yaallo. qofka markuu u dhowaado waxyaala ayuu dareemayaa. jooga inuu ka dhacaa dhici karto, inuu waxaa dhici karta maaragtay uu xanuunsado, inuu kuleel zaa'id dareemo, inuu maaragtay uu meesha ku jiro meesha uu ku mantago. marka calaamooyinka oo lagu garto waa maaragtay in oo qofka sixirka jirkiisa ku jiro iyo sixirkaas meeshaas yaallo oo guriga yaallo inay maaragtay isku xiran yihiin oo laba wax isla shaqaynayo inay yihiin. marka dad badan ayaa insha ilaahi subxaanahu watacaala sahal aga dhigay. waxayna sahlan tahay arrinta qofka intuu maaragtay jirka maaragtay wax dareemayo ayaa fiican inuu sixirkaas soo saaro, leanna waxa waaye muddo hadduu oo cilaajku uu wado oo jirka kaliya ka shaqeeya waxaa dhici kartaa midka jirka ku jira inuu xoogaa yar uu daciifo oo midka kale banaanka maaragtay si fiican ula shaqayn waayo oo qofku waxba uusan dareemin laakiin weli dhibka jiro. marka waxaa fiican qofka intuu maaragtay uu dhibkaas haysto in uu wixii ka salgaaro oo sixirka sidaas ugu soo saaro. marka waxaan rabnaa inaan ogaano biidnillahi alkariim sixirka sidee guriga lagu soo dhigaa, sidee lagu soo geliyaa. sixir waxaa jiro oo maaragtay oo la rusheeyo, ilbaabaha hortood lagu rusheeyo oo loogu talagalay family gaar ahaan. familigaas maaragtay in oo tafriiq oo ku dhaco oo maaragtay dadka ay kala tagaan oo maaragtay dagaalkooda uu bato. marka waxaa la sameynayaa shaydaanka wuxuu sameynayaa dadkaas oo dhan maaragtay ayuu magacyahooda intuu warqad ku qoro, qof kale oo meesha gurigaas degan maaragtay magaciisa ayaa la qorayaa. marka waxyaalo lagu soo akhrinayaa sidii ayaa maaragtay ilbaabka hortiisa sida biyo oo kale wixii intii biyo lasoo dhexgeliyo oo aayaad shaytaaniya waxyaala shaytaan in lagu akhriyo, mutamtamaad oo ay dhahaan carabta, tamtamaad shaytaaniya in lagu akhriyo sidii ilbaabka hortiisa ayaa loo dhigayaa qofki. marka qof waliba oo maaragtay oo magaciis ku qornaa
qof waliba oo magaciis ku qornaa oo meeshaas hadduu agmaro mise uu ku istaago waxaad arkaysaa sixirka inuu jirkiisa ku dhagaayo oo maaragtay sidii uu sixirka jirkiisa ku galaayo. marka qasabna ma aha arrintan inaan si fiican loo fahman way fiican tahay. qasabna ma aha qofka inuu maaragtay jirkiisa jinni soo galo. waxaa dhici karta qofka inuu maaragtay oo sixir jirkiisa ku jiro laakiin aansan jinni aansan lahayn. ka waran arrintan waxaa la isweydiiyey haddii uu maaragtay qof aan magaciis ku jirin maaragtay magaciis aan ka mid ahayn dadka familiga hadduu sixirkaas ku istaago maxaa arrintaas ka dhici karto. yacni qofkaasi waxaad arkaysaa in oo maaragtay xoogaa yar dharbaaxa oo maaragtay waxyaalo xanuun yar uu gaarayo laakiin uusan ahayn xanuunka dadka kale oo loogu talagalay oo magacooda ku qornaayo oo kale ma noqonayo qofkaasi, laakiin xoogaa yar waxaad soo gaaraysaa maaragtay dhib yar ayaa soo gaaraya inkastoo ta'thiir weyn uusan ku sameynin. marka waxa waaye ilbaabkaas guriga sidaas ayuu ku furmayaa. sidii ayuu maaragtay uu ku noqonayaa guri oo maaragtay oo mustabaax ah, guri oo wuxuu noqonayaa oo maaragtay shayaatiinta iyo maaragtay jinniyada waxay ka dhiganayaan beyt oo malja meel ay kusoo gambadaan ayuu u noqonayaa. marka waxaad sixirka maaragtay dadka badanaan waxay u maleeyaan in oo sixirka uu ilbaabka kaliya lagu rusheeyo. taasna sax ma aha. waxaad arkaysaa inuu maaragtay darbiyada in lagu rusheeyo geesaha maaragtay zawaaya albayt, geesaha darbiyada lagu rusheenayaa, derbiga lagu rusheenayaa sida uu maaragtay oo jinniga meesha degan sixirkaas oo uu ilaaliyo oo sahal ugu noqdo inuu qolkan ka baxo oo qol kala galo. marka meel waliba uu aado waxaad arkaysaa inuu maaragtay uu sixirka jadiidinayo. sixirku jadiidinayaa waxayna u noqonaysaa si sahal inuu inta qolkan oo galo inuu qol kale uusan ka baxo. tanaqul sahla tanaqul ayay u noqonaysaa. waxaana mar waliba maaragtay guriga uu rusheenayaa, guriga ayuu wax ku shidayaa. waxaasoo dhan idin qofka degan ma dareemayo lianna waa wax oo anaga caalamkeena aan ahayn oo caalam aljin washayaatiin ah. marka qofka ma dareemayo ilaa maaragtay oo xanuunka maaragtay yani oo sixirka uu muddo oo jirka ku jiro oo ku jirnaado guriga markaas ayuu bilaabayaa dareenka. waxaad arkaysaa sixiryaal kale waxaad arkaysaa yacni oo lagu duugo ilbaabka hortiisa ayaa lagu duugayaa. mise waxaa la gelinayaa kaarbeedka yar oo ilbaabka hortiisa la dhigto ayaa lagu duugayaa hoostiisa la gelinaya. anaga badanaa markaan guriga aan rusheynayno kaarbeedkaas yar waxa waa kor ayaan u qaadnaa, waan fiirnaa, biyaan ku bilbilnaa oo tahliil ah oo lagu cusbo lagu daray ayaan ku shubnaa. marka sidaas waxaad arkaysaa yani alxamdulillah dadka guriga maaragtay waxay dareemayaan xoogaa yar nafis. gurigii wuxuu ahaa dayiq cariiri ayuu ku ahaa markii arrimahaas aan sameyna walilahi alxamd. waxay dareemayaan guriga oo maaragtay sida villo oo kale oo noqday raaxad iyo xasiloon ayay gurigaas ku dareemayaan. waxaad arkaysaa yani badanaa dadka yani waxay arkayaan ukun oo maaragtay oo ilbaabka hortiisa lagu jibiyey. waxaad arkaysaa qooley oo maaragtay lasoo qalay banaanka iyadoo u yaalla ayay arkayaan. waxaad arkaysaa yani qofka inuu loo soo dhigo lafo iyo waxyaalahaas ilbaabka hortiisa. marka waxyaalahan oo dhan maaragtay waa waxyaalaha oo qofka maaragtay lagu dadaalaya inuu gurigiisa lagu soo galo. marka badanaa dadku waxay u maleeyaan maaragtay sixirka kowga maaragtay in uu jirka galaayo. jirka ma horeeya laakiin guriga ayaa horeeya. dadka badanaa qalad ayay u fahmaan. waxaa jirka ka horeeya guriga waa inuu awalan la furaa, markaas kadib waa inaa jirka la galaa. sidaas ayay maaragtay shaqada u socotaa. saas ayaa loo wadaa. marka yani waa wax laba shay oo isdaba socdo waay. haddii wax aad dhaafto kan kale ma baxayo. marka labadood waa inaad isla wadaa. waa inaad guriga ka shaqaysaa oo guriga aad nadiifisaa oo sixirada oo dhan aad ka saartaa. waa inaad isla markaasna maaragtay jirkaaga aad ka shaqaysaa oo maaragtay cilaajka aad si fiican u bilowdaa. marka waa labada shay oo isla socdo. waa inuu qofka wadaa hal shay hadduu ka tago qofkaasi waxaa dhacaysaa inuu maaragtay cilaajkiisa oo meel fiican uusan ka gaarin.
marka dadka badanaa yani anaga dhibka naga haysto waxa waaye aan mar waliba aan ku celcelino waa gurigaaga, war guriga xooga saar, war guriga xooga saar, war guriga xooga saar. mar waliba yani arrintaas waan ku celcelinaa, laakiin dadka badanaa arrintaas way ka caajisaan. shaydaanka ayaa maaragtay mashquul ka dhigaa, waxyaalo kale ayuu mashquul aga dhigayaa. marka qofka sidii ayuu maaragtay wixii uu ku joojinaya. horumarna kama gaarayo, cilaajka horumar kama gaarayo. mar waliba marka circulationkaas ayuu ku jirnaana wixii ayaa isku soo celcelinaya. marka waxay danta ay ku qasbaysaa inuu maaragtay markaas qof kale inuu raadsado oo maaragtay cilaaj saaro oo quraan saaro. marka anaga badanaa dadka waxaan ku dhiirigelinaa inuu qofkiisa cilaajeeyo oo asaga quraan is saaro oo maaragtay waxyaalahan guriga yaalla inuu iska soo saaro. dhibna ma aha inuu qof maaragtay qof kale oo u wacdo oo waxaan yaqaano oo maaragtay sida uu kaalmeyn lahaa uu saacidi lahaa. marka insha allah arrintaas waxa waaye saas ayay kusoo gabagabowday insha allah. subxaanaka allah bixamdik, ashhadu an laa ilaaha illaa anta nastaghfiruka wanatuubu ilayk. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh.